وعن wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maawilada dhalanka oo ka daawataan marka soo booqataan channelkan ku leenahay YouTube ee dhalan kuriye toddobaadba sheeko cusub ayaa caruur ay ku maqashaan sheekada toddobaadkan aanu idinku haynana waxa la yiraahdaa boqoradii bahalka guursatay aan ku bilaabo waxa la yiri bari hore ayaa waxa jiray nin ganacsada oo lahaa 3 markab iyo 3 hablood waxa nin laban oo deegaanka uu ku noolaa caan ka ahaa kana mid ahaa dadka hantiilayaasha ee deegmadiisa laga yaqaano balse mar dambe ayaa caruuray maqaadiri ku habsatay nolosha ayaa isku bedeshay waxaana 3diisii markab ay noloshiisu ku tiirsaneed waqti dambe liqday badda oo qaaday wuxuuna aabihii noqday ku sabool ah oo hanti oo dhan ka haysta guri yar oo ku yaala tuulo ayuu murugooday 3 hablood ee ubad lahaana 2 kamid waxay hayeen kuwa xilowyaala oo maalintii oo dhan noloshooda iyagu isku jeeda murma hawsha guriga iyo qoyskoodana waxba aan ka qabanin waxayna ka hinaaseen walaashooda yar oo ahayd tullabadoodaba ka qurux badnayd hadiye jeeraalana hawsha kalideeda ay ku eegi jireen ayayna wax qabadkeeda uga hinaasi jireen maalin dambe aabihii oo la murugaysan warka murugada leh loo ayaa waxa dushiisa ku murmaya labadiisa hablood ee waaweynaa waxayna isku haystaan mustaqbalka wixii ay yeeli lahaayeen iyo halka reerkooda dhaqaale looga heli lahaa halka tii ka yareydna ay hawl maalmeedka guriga ku mashquulsan tahay oo maanta oo dhan iyadoo ay tahay tan kaliya ee aabaheeda murugaysan u adeegaysa nolosha guriga oo dhan ka socota ayay kalideeda iyadu qabanaysaa waxay ahayd Fariid maalin dambe waxa aabihii loo soo sheegay mid ka mid ah 3diisii markab uu ku soo caariyay dekeed wuxuuna doonay inuu ka war doono safar ayaanu u baxay wax yar ka hor inta uusan dhaqaaqinayo 3diisii hablood la hadlay labadii waaweyn ayaa ku yiri maxaan idin keenaa marka aan soo laabto waxay ku yiraahdeen dhar dahab iyo wax kasta aanu xidhanno tiirayna waxay ku tiri aabe nabadgal aniga xataa hadii aad xabad u baxay keento iga badan dekada markii aabihii uu yimina waxa arkay maqaadir kale oo ka naxisa markabka kaliya maraakiibtiisa ka hadhayna waxa arkay inuu yahay ku burburay oo aan wax manfaca hadda lahayn dub ayuu isaga soo laabtay isagoo murugaysan oo faraskiisii fuushan jidka ayuu muddo dheer soo hayay roob ayaa ku da'ay waanu gaajooday qabow daran iyo dhaxan ayuu hadda la gariirayaa muddo markii uu dariiqa soo socdayna waxa uu sheeda ka halacsaday qasri weyn oo dhalaalaya oo leerkiisu muddo u muuqday waxa uu isweydiiyey yaale kalow halkan yaa degan isaga waxa haysan baahi iyo gaajo daran inta uu qasriga ku hor xidhay faraskiisii ayaa uu soo galay kadinka markii uu ka soo galinay waxa uu arkay miis nooc wal oo cunni taalo iyo waliba dab la shiday iyo qoldiran ayuu u farxay balse qofna waa arki waayay kadibna dhan walba intuu istaagay ayaa u yeedhay dadkii guriga joogay oo yiri halkan yaa jooga ciidina lamaysan hadal kolba dhan ayaa u jeestay markii dambena baahida haysay waxa ay tu darane kalidii ayaa iska adeegtay oo waxa uu cunay cunadii taalay miiska habeennimadiina qol ka mid ah qasriga ayuu iska seexday subaxii markii waagu bariyay cadceedu soo baxdayna isla qasrigii ayuu ka dhex toosay wuxuuna arkay dhar nadiif ah oo agtiisa la dhigay hare ayaa ka qaatay oo soo labistay kadibna waxa uu yimi isla miiskii oo sidii oo kale mar kale sharaxan oo quraac nooc walba leh ay taalo waxa uu yiri halkan awliyo amba dad wanaagsan ayaa iskale cid kale sida ay ma samayseen sidaasna ima sooriyeen subaxii markuu banaanka u soo baxay waxa uu yiri kulleba waxyaabihii ay hablahayda kale doonayeen ma awoodi karo oo hantiba ma helin waxaase kaliya awooda waxa weeye inaan u bixi aynantayda yar iga codsatay u gooyo oo aan u geeyo hal ubax oo gaduudan ayaanu ka jaray beertii balse mar kaliya waxa gariiray dhulkii uu qasrigu ku yaalay aabihiina waa u naxay waxaana ku soo baxay wax aan dad iyo bahal toona ahayn libaax u eeg haddana mararka qaar aad dhurwaa moodo ayaanu ninkii u gariiray cabsi darteedna waa u dhacay
waa ku soo socday isagoo marba mar ka dambaysa u soo dhowaanayay wuxuu ku yidhi waan ku martigeliyey waan ku sooriyeeyey adiguna ubaxayga ayaad xadaysaa sida tan miyaad iigu mahadnaqaysaa ma waxaas ayaa mahadnaqaagu tuug ayaa tahay waxa uu yidhi haydilin ma doonaynin gabadh yaroo aan dhalay ayaa ubaxa jecel aan islaha u geeye waxaan mase rabin inaan adiga ku xumeeyo wuxuu ku yidhi waxaad samaysay waxay mudan tahay in lagugu ciqaabo balse hal mid oo keliya ayaad ku badbaadi kartaa waa adigoo mid ka mid a saddexdaada gabdhood ku qanciya inay aniga halkan igula noolaadaan iyagoo weliba aanad qasbin oo rabitaankooda ku yimi wuxuuna u jeeday waa inaad mid ka mid a aniga iga guuriso aabbihii oo warwarsan kana baqaya warka murugada leh ee lasoo amray haddii uu sidaas samayn waayana loo sheegay in noloshiisu ay khatar ku jirto ayaa dariiqa gurigiisa soo qaaday isagoo aad u cabsoonaya ma aqaano waxuu hablihiisa ku odhan doono ninkan aan dad iyo bahalka toona ahayn uu mid ka mid a hablihiisa u guuriyo waxau isweydiinaya tan yeeli doonta iyo haddii wuxuuba diidaan waxa uu samayn doono warkii naxdinta lahaa ayuu labadiisii waaweynood ee hablihiisa u sheegay waxay hayeen kuwo xaasidiin oo hinaaso badan ee markiiba waxay idhaahdeen maya annaga waxaas nagalama hadli kartid gabadhii waalida daacadda ahayd ayaa aabbaheed u timi waxay ku tidhi aabba haddii ay noloshaadu khatar sidaas ugu jirto aniga ayaa u guuraya dhurwaagan iyaguna waxay ku yidhaahdeen haa u goor ilaa aabba wuxuu khatarta u galay inuu ubaxaaga adiga kuu keenee marka horeba annaga wax khatara nooma gelin waxay haayeen kuwa arxan daran aabbihiina maalintii dambe waxa uu faraskii ku qaaday gabadhiisii ugu yarayd hablihiisa uguna quruxda badnayd waxa uu keenay qasrigii quruxda badnaa isla sidii maalintii hore oo kale ayaa meel weliba sharaxan tahay miis walba waxaa taalla cunno meel kastana way dhalaalaysaa gabadha daada yarlana aad ayay ula yaabtay balse mar keliya waxaa soo degay waxaysan weligeed arag oo aan dad iyo bahal toona ahayn kadibna way argagaxday aad ayayadii aabbaheedba u boodeen intuu la hadlay ayuu ku yidhi tan waa inantaadi sow maaha halkan rabitaankaaga ayaad ku timi waxay ku tidhi haa say nafta aabbaheed u badbaadiso wuxuu ku yidhi aabbahaa hadda waa uu iska tegi karaa weligiina halkan dub uguma soo laaban doono kadibna qasriga ayay kelideed ku soo hadhay aabbaheedna waa uu tegey kelideed ayaana hadda halkan ku quraacanaysaa waxaa aragtay beerta quruxda badan leh ee isla qasriga ku hareeraysan iyo nooc wal oo ka mida ubaxyadii ay nolosheeda jeclayd oo halkan ku yaala isla markii qasriga soo gashana waxay arag in halkan ay taallo qurux kasta oo weligeed niyaddeeda ku soo dhici jirtay oo ay jecleed inay marun aragto way tacajabtay waxay leedahay halkan mariyadeeda ayay keentay waxay timi qol sharaxan oo nooc weliba yaallo aad ayay u cajabtay meel kasta waxaa ku yaalla nooc ka mida ubaxyadii ay nolosheeda jeclayd aad ayay u yaaban tahay waxayna isweydiinaysaa waxaa tan ka dambeeya waxay heshay buug weyn oo ay ku qoran yihiin xarfo aysan hara u arag waxaa ku qoran hadda wax kasta oo niyadaada ku soo dhaca oo aad jeclaato waad arki kartaa waxay tidhi waxaan jeclaan lahaa inaan arko aabbahay halka uu ku dambeeyey kadibna muraayadda ayay ka aragtay aabbaheed oo qayb ka mida qasriga xataa jooga aad ayay u faraxday balse ma taqaano sababta ah ay halkan u joogto galab kasta waxay timaadaa qaybta lagu cuneeye ee qasriga oo sharaxan kadibna waxaa hoos u soo dega ninkaan dad iyo bahalka toon ahayn galabta su'aal ayaa weydiiyey waxa uu ku yidhi ma iman karaa oo miiska ma kugula cuntayn karaa waxay ku tidhi maxaad ii weydiinaysaa adiga ayaabuu gurigaaga yahay wuxuu ku yidhi su'aal kale miyaan fool xumahay iyada oo yaro cabsanaysa ayay ku tidhi haa aad ayuu u murugooday haddana su'aal kale ayaa u weydiiyey waxau ku yidhi miyaad i guursan lahayd iyadoo degdegaysa ayay ku tidhi maya weligay kuma guursadeen dabeetanaynta u cadha murugooday oo uu xanaaqay ayuu dub isaga laabtay ninkii dad iyo bahalka toona aan ahayn balse muddo dheer ayay noloshooda qasrigan ku sii wada noolaayeen maalin kastana waxay iman jirtay nolol iyada loo diyaariyey isaguna waxau ahaa ku daryeelaa
aad ayuu uga cabsoon jiray nolosha ayaa sii socotay muddo dheer markii halkan wada joogayna hadda waxay la qabsatay gabadhii yaray nolosha ninkan bahalka u eeg waxa uu keeni jiray nooc ka mid a ubaxyadii ay jeclayd haddana kalsooni ayay qaaday balse maalmaha ka mid ayay muraayadii ka aragtay aabbaheedu xanuunsan waxay ku tidhi ma ii fasaxi kartaa inaan aabbahay aado waxuu ku yidhi haa markaad doonta ayaa tegi kartaa laakiin ogow haddii aad qasrigan ka tagto aan ku waayo waxaad dhici kartaa inaan murugo iyo ciil u dhinto waxaan ka baqayaa inaad igu soo laaban weydo iyana waxay ku tidhi waan soo noqon hal toddobaad oo keliya ayaan maqnaan kadibna waxauu siiyey fargal mucjiso ah waxuu ku yidhi markaad habeenkii seexanayso madaxaaga dhig miiska madaxaaga yaal kadibna waxaad ka toosi subaxii isla gurigii aabbaha markii subaxii waagu baryeyna waxay si mucjiso ah uga toostay oo ay aragtay iyadoo dhex orida guriga aabbaheed ku noolaa aabbaheed oo xanuunsanaya ayay markiiba u tegtay aabbaheedna markii uu iyada arkay ayaa uu farxad la soo toosay markiina waa uu ladnaaday balse waxaa si lama filaana guriga u yimi labadii hablood ee kale oo dhalay oo iyaga laftigooda dad aan wanaagsanayn ay guursadeen balse weli ka hinaasiisan nolosha walaashooda da'da yar leh markana doonayaba xataa inay iyada dilaan waxay yidhaahdeen maxaa inagu soo celiyey oo inaan halkan ku haynaa kadibna marka bahalkii qasabka loogu daray uu waayo uu isagoo cadhaysan halkan u yimaadaa si uu iyada u cuno waxay ahaayeen kuwo mar kasta ka shaqeeya dhagarta iyo xumahay walaashooda yar la doonayaan balse iyadu waxay tu qalbi wanaagsan oo weligeed walaalaheed wax xumaana kumaysan samayn markan iyagoo isyeelyeelaya ayay iska oohiyeen waxay ku yidhahdeen walaashii waannu kuu murugaysannahay waxaannu ka xumaanay markaad meel kale nooga guurtay waxaannu jeclaan lahayd inaad nala joogto waannu ku tabnay waananu kuu xiisnay nala joog hal weeg ama wax ka badan waxay ahayd gabadh niyad wanaagsan ee aad ayay u warwartay waxayna ogeed ballanta ay la gashay ninkii ay gurigeeda ku noolayd ee dad iyo bahalka toona aan ahayn habeenkii markii ay seexatay ayaa waxay ku riyootay oo ay aragtay ninkii oo dhacay oo suuxsan inuu dhintana u dhow jiifana isla beertiisa ubaxyadu ku yaalay aad ayay u warwartay kadibna way seexan kari weyday markaa kadibna waxay go'aan ku gaadhay inay caawiso ay ku laabato iyadoo baqanaysa fargalkeedii ayay saartay waxaana ay dhigtay isla miiska madaxeeda yaalay subaxii markii waagu baryeyna waxay ka toostay qasrigii way kula noolayd ninka bahalka u eeg way soo toostay balse way weyday meel kasta way ka egtay wakhtiguu soo degi jirana waa la gaadhay mar dambe ayay u soo baxday beerta qasriga boqortooyada ku taalla waxayna aragtay isagii oo suuxsan oo beerta dhex jiifa aad ayay u naxday kadibna way ku soo carartay si ay u caawiso waxay aragtay wadnihiisa oo weli sii garaacaya iyo in weli nafi ku jirto uusan dhiman intay dhabanka laabta u saartay ayay ku tidhi maxaa ku helay waxuu ku yidhi waxaan ka warwarayay inaanad weliga igu soo laaban doonin murugo iyo ciil ayaan halkan ku suuxay oo aan u dhacay tan iyo intaad iga maqnaydna waxna ma cunin mana cabbiin waana sababta aan halkan ugu suuxay waxay ku tidhi maya waan kuu soo laabtay waanan ku jeclahay xataa waxaan jeclaan lahaa inaan ku guursado ayay tidhi keliya ayaa uu indhaha kala qaaday waxaana dhacay wax lama filaan ah qasrigii ayaa mar keliya gariiray waxaana ka baxay hillaac iyo laydhcad iyana intay naxday ayay istaagtay waxay is eegtay waxa dhacay mar keliya ayay dhulka eegtay waxaana aragtay halkii bahal ku jiifay oo wiil dhallinyaro ah oo qurux badani jiifo mar kale ayay naxdin gariirtay waa i oyday waxay tidhi yaa tahay miyay bahalkii halkan jiifay maxaad ahayd iyada oo cabsi darteed ooyeysa waxau yidhi waa aniga qofkii bahalka ahaa waa hore waxay sixirtay qumayo waxayna iga dhigtay bahal si aanan nolosheeda weligay u taabagelin shardiga keliya ee sixirku iga jabayeyna waxuu ahaa inaan helo gabadh qurux badan oo noocaan ahay igu aqbasha iguna ogol ina sheegtay inay jeceshahay markii aan sidaasoo keliya helana waxay ahayd sababta keliya ay nolosheedu dib ugu soo laaban karaysay waad i badbaadisay aad ayaad u mahadsan tahay iyana way faraxday niyaddeedii wanaagsanayd
iyo dadaalkii wanaagsanaa ay nolosheeda samaysayna hadda ilaahay waxa ugu bedelay waxay nolosheeda ku faraxdo. gabadhii wanaagsaniidna hadda waxay heshay boqor dhab ah oo ka taliya boqortooyo ballaadhan lehna qasri aad u weyn oo qurux badan. waxaan halkaa ka bilaabmay xidhiidh cusub. boqorkuna waxa uu guursaday gabadhii quruxda badnayd waxayna noqotay boqorad ka talisa deegaanka uu boqorka ku ahaa. u taabagashay nolol qurux badan oo ahayd tii ay weligeed ku taamaysay. niyad wanaaggeedii ayaa ilaah u rumeeyey. tan iyo haddana haddaysan dhiman waxay boqorka iyo boqoraddu ku nool yihiin nolol qurux badan. sheekada tan waxaan ka baranaynaa in wanaagga aad waalidka u gashaa uu yahay waxaad abaal weyn ku heli karto ifka iyo aakhira labadaba. waxaan sidoo kale sheekada ka baranaynaa in qofka nolosha xaasida walaalkii uusan weligii guul gaadhin, halka qofka wanaagsanna xataa haddii noloshu ay bahal afka uga geliso alla uga dhigi karo wax wanaagsan oo noloshiisa anfaca. tan iyo toddobaadka soo socda intaynu isku imanayno sheekada tan ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. haddii aad sheekadan ka cajabisay fadlan sii gudbi subscribe saar lana wadaag asxaabteeda. waqtigu ha idin waclaado.